Assalaamu calaykum. Maanta waxaynu soo bandhigaynaa cuntooyinka xasuusta kobciya, sidoo kalena cuntooyinka la dagaalama ama cunistoodu ay ka hortagto ilowshiyaha iyo xasuus la'aanta. Haddaba intaynaan mowduuceena u gudbin, isla markaana aynaan soo bandhigin cuntooyinkaas, marka hore waa inaynu isla fahanaa waxa ay tahay xasuus yarida ama xasuus la'aanta iyo weliba ilowshiyuhu. Maskaxdu waxa ay ka mid tahay nimcooyinka ugu qaalisan ee Ilaahay bini'aadamka ku manaystay. waana wax Ilaahay bini'aadamka uu kaga fidelay makhluuqa caalamka ku nool intiisa kale. Haddaba sidaynu wada ogsoonnahay, xasuus xun iyo xasuus wanaagsan qofka waa ay ku dhici kartaa. Xasuusta waxa ay martaa marxalado kala duwan iyadoo la socota hadba korriinka qofka, waxayna la kulantaa isbedelo kala duwan kaasoo noqon kara mid wax u dhima iyo mid kobciya. sidaa daraaddeed, ilowga ama hilmaanka waxaa keeni kara waxyaabo badan oo cudurro ay ka mid noqon karaan. Hilmaanka waxa uu noqon karaa wax iska caadi oo muddo gaaban hay kara qofka, iyadoo uu ka iman karo xaaladda uu qofkaasi markaa ku sugan yahay, sida diiqadda iyo niyad jabka ama fakarka oo kale. Ilowga ama hilmaanka waxa kale oo uu noqdaa cudur markuu qofku la kulmo dhibaato caafimadeed, sida cudurrada Parkinson's iyo Alzheimer's. Ilowshiyaha waxa uu ku bilaaban karaa qofka dhibaato jug ah oo dhinaca maskaxda ka soo gaadha ama dhibaato nafsaaniya. Hilmaanka ama ilowga waxa kaloo keeni kara hadduu qofku leeyahay balwad caafimaadka u daran, sida qaad cunista, sigaar cabista, siigaysiga ama daawashada filimaanta xunxun, waxayna arrintani ku badan tahay dadka dhallinyarada ah. Haddaba intaa kadib, in badan oo inaga mida ayaa waxay leeyihiin ilowshiyo, wax kastoo meel dhigaana way ilaabaan, sida furayaasha guriga ama taleefoonnada gacanta ama akhriska iyo waxbarashada. Haddaba daawade, haddii aad ka mid tahay dadka ilowshiyaha badan ee mar kasta wuxuun hilmaamaya, waa inaad ku dadaashaa cunista cuntooyinka maanta aynu soo bandhigayno si aad u xoojiso xasuustaada. sidaa daraaddeed, ku soo dhowow mowduuceena iyo kanaalka Nafaqa Channel. ugu horeyn daawada, hadday tahay markii kuugu horeysay kanaalka Nafaqa Channel, fadlan calaamadan subscribe ka taabo, kadibna calaamadan gambaleelka ama jeleska taabo. insha Allah waxaad heli doontaa wax kasta oo aanu soo dhigno isla daqiiqada aanu soo dhigno. ugu horeyn daawada, kalluunka ayaa ka mid ah cunooyinka xasuusta kobciya, waayo kalluunka ama malayga waxa lagu tiriyaa cunooyinka ugu caafimaadka badan. Kalluunka waa cuntada ugu horeysa ee laga helo saliidda loo yaqaano omega 3 oo faa'iidooyin badan u leh jidhka iyo maskaxda. sidaa daraaddeed, malayga ama kalluunka waxa uu muhiim u yahay korriimada iyo kobcinta unugyada jidhka, gaar ahaan aragga iyo maskaxda. waana sababta loogula dardaarmo in carruurta iyo ardaydaba ay ku dadaalaan si ay uga helaan xasuus fiican. sidaasoy tahayna, malayga waxa uu yareeyaa duqoobidda iyo baaba'a unugyada xasuusta. sidaa daraaddeed, hilmaanka iyo laleemada la xiriirta duqnimada waa looga hortagaa. haddaba daraasad lagu sameeyey arrintan waxaa la arkay in dadka xasuustoodu ay aadka u fiican tahay iyagoo da'a. in la arkay in kalluunka uu kobciyey qayb ka mida maskaxda oo loo yaqaano grey matter. dadka dhaxalka u leh xanuunada laleemada iyo xasuus la'aantana waxaa lagula taliyaa in usbuuc kasta ay cunaan kalluun si ay uga badbaadaan xanuunka Parkinson iyo weliba xanuunka kale ee loo yaqaano Alzheimer's. cuntooyinka kale xasuusta kobciyana waxaa ka mid ah shaaha cagaaran. shaaha cagaaran waa cabitaanka ugu caafimaadka badan dunida, waa sida ay sheegayaan cilmi baarayaashu. haddaba shaaha cagaaran waxa uu wanaajiyaa shaqada maskaxda, wuxuuna kobciyaa fakarka iyo xasuusta. shaaha cagaaran waxaa ku jirta maaddo u gudbi karta maskaxda. maadadaasna waxaa loo yaqaanaa L-theanine. maadadan maskaxda waxay ku kordhisaa firfircooni iyo inuu qofku feejignaado. waxaana intaasii dheer in shaaha cagaaran ay ku jirto qadar yar oo kaafey ah, tan oo iyadana ka qayb qaadata firfircoonida maskaxda. digirta ayaa iyaduna ka mid ah cuntooyinka xasuusta qofka kobciya. digirtu waxay ka mid ahaan jirtay cunooyinka ay Soomaalida aad u taqaano aadna ugu dadaalaan, gaar ahaan xilliga cashada. caafimaad badanna way ka heli jireen, laakiin waxaad moodaa inuu isticmaalkeedu ku sii yaraanayo magaalooyinka. inkastoo waalidka uu badanaa og yahay faa'iidada ku jirta digirta, laakiin digir nacaybka badanaa waxay ka timaadaa carruurta iyo dhallinyarada. waxaana jira dad badan oo aaminsan in cunista digirta aysan ilbaxnimada ka mid ahayn, waana sababta keenaysa in aan lagu darin liiska cuntooyinka laga dalbado maqaayadaha maadaama dalabkeedu yar yahay.
digirta waxaa lagu tiriyaa cunto faa'iido badan xambaarsan haddana la awoodi karo. digirta waxaa laga helaa 20 walxood oo jidhka faa'iido ugu jirto, waxayna kala yihiin vitamin C, vitamin K, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, folic acid, calcium, birta, magnesium, phosphate, potassium, zinc, copper, selenium, dufanka omega 3 loo yaqaano iyo dufanka omega 6 loo yaqaano iyo borotiin iyo tamar. intaasiba waa nafaqo ku kaydsan digirta. haddaba digirta waxa ay ka mid tahay cuntooyinka xasuusta kobciya, waayo digirta waxyaabaha ka buuxa waxaa ka mid ah vitamin B1 oo sidoo kalena loo yaqaan thiamine. fitamiinkan wuxuu aad ugu roon yahay caafimaadka maskaxda, wuxuuna kordhiyaa foojignaanta xasuusta, wuxuu kaloo ka hortagaa hurdo la'aanta iyo diiqada. waxaa kaloo la arkay in digirtu ay yarayso halista cudurka xasuusta lumiya ee loo yaqaano Alzheimer's disease. dhinaca kale caleenta koostada ayaa ka mid ah cuntooyinka sare u qaada xasuusta maskaxda, isla markaana la dagaalama ilowshiyaha iyo hilmaanka. caleenta koostada cunto ahaan iyo cabitaan ahaan labadaba waa loo isticmaali karaa, waxayna aad ugu soo badanaysaa deegaanada Soomaalida. laakiin waxaa muhiim ah inaynu ku baraarugsanaadno in aan la karin caleenta koostada ee kaliya la uumiyo. haddii la karkariyo waxaa ka dhinta nafaqada ay xambaarsan tahay. markii la uumiyo dheecaanka ay dhashana lama daadiyo koostada ee suugo ayaa loo dhigtaa si aysan ku dhaafin nafaqooyinka ay xambaarsan tahay. sidoo kale waxaa muhiim ah oo dadkeena laga rabaa inay ku baraarugsanaadaan inay ka fogaadaan isticmaalka koostada warshadaysan. haddii aad heli karto iyadoo freesha, taas ayaa nafaqo badan kana fog halista daawooyinka iyo sunta lagu buufiyo beeraha ama daawooyinka lagu xifdiyo cuntada oo warshadaha ay ku soo daraan. sidaa daraaddeed daraasad la sameeyey dhowaantan waxaa la soo daabacay in koostadu ay kobciso xasuusta, shaqada maskaxda iyo foojignaanta. geesta kalena daawada lowska ayaa ka mid ah cunooyinka kobciya xasuusta maskaxda. sidaa daraaddeed lowska waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan oo jidhka bini'aadamka uu leeyahay, laakiin waxaynu ka hadlaynaa xasuusta maskaxda. lowska waxa uu ka mid yahay cunooyinka loo yaqaano brain food sababtoo ah waxaa ku jira vitamin B3 loona yaqaano niacin, kaasoo kobciya shaqada maskaxda sarena u qaada xasuusta. waxaa kaloo lowska ku jira maado loo yaqaano resveratrol, taasoo 30% siyaadisa qulqulka dhiigga ee maskaxda, taasoo muhiim u ah firfircoonida maskaxda. qorfaha ayaa isaguna ka mid ah cuntooyinka kale ee sare u qaada xasuusta maskaxda. qorfaha waa geed aad looga isticmaalo dhulka Soomaalida, wuxuuna ka baxaa wadamada India, Sri Lanka, Indonesia, Brazil, Vietnam, Egypt, China iyo Madagascar. qorfaha waxaa lagu darsadaa cabitaanada iyo cuntooyinka. sidoo kale waa geed aad looga isticmaalo qolofta meeraxda iyo saliidiisaba. qorfaha waa geed caraf badan ama udgoon badan oo cuntada lagu darsado. qorfaha waxa uu kordhiyaa foojignaanta iyo xasuusta, taasoo lagu arkay cilmi baadhis laga sameeyey dad ku nool dalka Jarmalka. haddaba shaaha ku darso qorfe marka aad wax akhrinaysid ama aad xifdinaysid, wuu kaa caawin doonaa idanka Alle. wuxuu kaloo wax ka taraa xanuunka xasuusta lumiya ee loo yaqaan Alzheimer's, taasoo lagu ogaaday ilaa 3 cilmi baadhis oo lagu sameeyey wadamo kala duwan. cuntooyinka kale xasuusta kobciya waxaa ka mid ah saliid saytuunka. saliid saytuunka waxay ka baxdaa wadamada bariga dhexe ama wadamada cimilada kulul leh. sidaa daraaddeed saliid saytuunka waa mid qur'aani ah oo Allaheena weynayna abuurtay ayaa quraankiisa kariimka ku xusay saliid saytuunka. sidoo kalena sunnada nabigeena ayay ku xusuntahay saliid saytuunku. haddaba saliid saytuunka waa mid nafaqo iyo caafimaad kulansatay, waxayna jidhka u tartaa waxyaabo badan. saliid saytuunka waa saliid dabiici ah oo laga soo saaro midhaha geedka saliid saytuunka. 73% waa dufan cufnaanteedu yar tahay, taasoo faa'iido weyn ugu jirta caafimaadka, waxaana loo yaqaanaa oleic acid. waxaa intaasii dheer in saliid saytuunka ay adkaysi u leedahay kulaylka iyo dabka, taasoo ka dhigaysa saliid ku habboon cunto karinta, meesha saliidaha kale ay gubtaan inta aysan cuntada karinba. saliid saytuunka waxaa ka buuxa maado jidhka sunta ka saarta oo loo yaqaano antioxidant, waxayna la dagaalantaa caabuqa jidhka, waxayna hoos u dhigtaa kolestaroolka, taasoo ka hortag u ah xanuunka wadnaha. sidaa daraaddeed faa'iidadeeda waxaa aad looga helaa nooca saliid saytuunka ee loo yaqaano extra virgin oil. saliid saytuunka waxay hoos u dhigtaa caabuqa raaga. xanuunada ay ka hortagtana waxaa ka mid ah kansarka, wadna xanuunka, macaanka, cayilka,
iyo xasuus la'aanta. xasuusta waxaa kaloo kobciya filfisha. midhaha filfisha loo yaqaano waxaa ku jirta maado loo yaqaano berberin oo sare u qaada xasuusta iyo awoodda maskaxda qofka. daraasad lagu sameeyey arrintanna waxaa lagu ogaaday xanuunada xasuusta lumiya in filfisha u roon tahay. daawadayaal, ugu dambayntii kama hadlayno cunto ee caado ayaynu ka hadlaynaa. haddii aad qosolka ka dhigato caado, cilmi baadhisyada qaar waxa ay sheegayaan in qosolka uu sare u qaado xasuusta, weliba mideeda dhow. si sahlanna wax aad u xasuusan karto waa haddii la fiiriyo qofka murugaysan.